السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aad baan idiin salaamnay walaalahayna Soomaaliyeed kusoo dhawaada caawa iyo barnaamijkeeni vloggeeni quruxda badnaa ee aan idinka qabanay magaalada Hargeysa kusoo dhawaada Carre Edeg Hotel oo aynu ka bilaabi doono insha Allah vloggeenan caawa oo aan idinkula wadaagi doono quruxda magaalada Hargeysa iyo weliba horumarka kusoo kordhay magaalada 10kii sano ee ugu dambeeyay maasha Allah waxaan hadda gudaha usoo galay waa hotelkii Carre Edeg Hotel waa hotel casri runtii si heer saraana loo qalabeeyay soo jiidanayana indhaha qof kasta oo runtii soo gaadha waa meel aad u qurux badan aadna looga shaqeeyay dhaqaale fara badan oo galay anaguna aan jeclaysanay inaan quruxdiisa idila soo wadaagno maasha Allah soo fadhiista bal nala daawada quruxda magaalada Hargeysa isbedelka ay ka sameysay inagoo waliba cabiri doona xilliyada habeenkii waanu ku faraxsanahay inaanu idila soo wadaagno markasta muuqaal qurux badan magaalada aanu joogno markaas oo aanu caawa ku suganahay magaaladii Hargeysa soo raaca insha Allah caawa waxaanu idiin wadnaa barnaamij runtii aad soo aragteen oo aad u qurux badan Hargeysa iyo quruxdeeda iyo waliba maasha Allah ballan korkeeda ka tusno quruxda magaalada Hargeysa iyo waliba sida loo dhistay loo hagaajiyay loo maalgashaday iyo waliba quruxda ka muuqata insha Allah marka caawa Hargeysa nooga shidan tahay asxaabteeda qaaliga maadaama jeclay mar walba inaynu sabdii karayno bal nala daawada hotelkan joogno iyo Hargeysa quruxdeeda soo dhawaada insha Allah يا أحمد habeenada ka midna muqdisho kaaga shidnay caawina Hargeysa kaaga shidan tahay xariiq way ma sha Allah waxaan rajaynayaa dhulal badan oo Soomaaliyeed inay ku harsan yihiin waa sidan oo kale muuqaalo badan uga soo duubi doonto bal hal iyo laba adigoo nooga taabanaya muqdisho iyo Hargeysa farqiga u dhaxeeya hadda yani habeenkii oo kale marka waran waxay ku kala duwan yihiin hadday noqoto jawiga habeenkii goobaha quruxda badan sida hoteelada bal ku soco markaa haddii aan hal iyo laba idinka idhaahdo quruxda labada magaalo iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin Hargeysa iyo Muqdisho horta labaduba waa laba caasimadood waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed oo dabcan horena u ahayd imikana Muqdisho ah Hargeysana intii ay xamar burbursanayd ama dagaaladu ay ka socdeen ayayna oran karnaa iyadoo ay horumartay caasimadii shanta Soomaaliyeed bay lafteedu isku bedeshayo cid walba waa laga helayaa marka Hargeysa lafteedu waa dhisantay xamar lafteeduna waa dhisantay haddaba midda kaliya ku kala duwan yihiin baa xagga dabcan xeebnimada Muqdishona waa xeeb oo magaalada dalxiis oo haddii aad magaalada iyo rabshadeeda aad iyo buuqeeda sawaxanka gawaadhida aad ka yar naseys leedahay badda iyo mawjadaha tagaysa halkaas waqti ku soo qaadanaysa Hargeysana haddii aad sawaxanka gawaadhida iyo mashquulka aad ka yar naseys tiraahdo waa inaad hoteelada cagaaran iyo meelaha quruxda badan la aadaada sida halkan imka aan joogno oo kale oo aad markaa nafta ku yar dejisaa marka labadaba waxaan leeyahay one love aad baan u jeclay labada magaalaba waa laba caasimadood waxaan rajaynayaa Jigjiga lafteeda waan soo maray waa magaalo aad u qurux badan Addis Ababa lafteeda waa magaalo bilicda magaalada Hargeysa marka dusha ka daawanayso ama dusha laga sawiro runtii muuqaal aad u qurux badan baa soo baxaya oo runtii aynu imika wada daawan karayno oo wada arki karayno waa magaalo runtii ballaaratay oo masaafo aad kiiloomitirada aad u fara badan isku jirta gawaadhidu ay aad ugu badan yihiin maasha Allah dabcan dabaqyada iyo dhismayaasha dhaadheer ee ku soo kordhayaan maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaan halka waxa inooga muuqda Burji Omar waxa kale oo inooga muuqda Omar Hashi Building waxa kale runtii garabkeena ku dhagan Dera Mall maasha Allah halka waxa sidoo kale inooga muuqda Masallafiyu waxaynu leenahay waa magaalo runtii aad u dhisantay aadna u qurux badan indhaha dalxiisayaashuna runtii ay aad u soo jiidanayso aadna runtii ay ugu soo noqonayaan maalinta ka dambaysa cid walba leh ajnabi Soomaali Afrikaan Carab waxa sidoo kale aad la socotaan inay soo booqdaan intaasoo YouTuber oo nooc walba leh Afrikaan leh Hindi leh Carab leh caalamiya oo maasha Allah maalinta ka dambaysa ku soo qulqulaya deegaanka Somaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa waa magaalo runtii markaa ku farxad gelinayso inaad dadkaaga la wadaagto runtii ku haboon quruxda deegaan ahaan ilbaxnimada magaalo ahaan
dadka ku nool oo runtii dad ilbaxa ah oo iyaga laftooduna runtii aad u soo dhaweeyay dad iyagu kala duwan ee imanaya maasha Allah marka indheheena ay noo macalina aad baan soo aragteen quruxda caasimadda Hargeysa ee Somaliland waxaana la yiraahdaa inta badan markaad aragto dad wax qabsaday oo naftooda wax u qabtay dhulkoodana wax u qabtay inaad bogaadiso oo aad dhiirigeliso muuqaalada noocan waxay naga mudan yihiin inaynu gaarsiino kumanaan views inaynu gaarsiino malaayiin qof si loogu soo dhiirado kuwa naga maqan ay u yimaadaan kuwa joogaana ay jeebadaha gacanta u geliyaan u maalgashadaan dhulkooda marka muuqaalkan wuxuu idinka mudan yahay saara insha Allah oo sameeya inaad like garaysaan oo share garaysaan waliba Hargeysa fari kama qodna waan idla socodsiin doonaa maalinta ka dambaysan muuqaalo xamaasad leh oo xiisooda leh nagala socda barteenan Axmed Daawud channel ala shaydaanka hadda waynu ka soo dhamaanay magaalada dusheedii waxaynu soo galeynaa gudaha magaalada iyo balquruxda iyo waliba qaabka ay u agaasiman tahay iyo inaynu isla daawano viewga gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan wadooyinka waaweyn ee bartamaha jidka bartamaha magaalada Hargeysa waxaynu hadda u soo baxnay wadadii bartamaha magaalada Hargeysa dhex mareysay ee markaa ka imaneysay madaxtooyada isla markaana ka imaneysay suuqa hoose downtown-ka oo aynu markaa dhex mushaaxayno gaadiid tiro badan oo hareeraha wadada yaala arkaysaan sidoo kale gaadiid tiro badan oo wadada maraya oo iyaguna in iyo out ayaa loo baxaa marka tan waa tii soo galeysay gudaha ee xagga suuqa u socotay weeyi sidoo kale waxaynu arki karaynaa nidaamka loo qurxiyay agagaarka wadada loona maalgashaday maasha Allah sidoo kale waxay noo muuqda dabaqyo kala dhaadheer oo iyaguna deero mooliyo sidoo kale waxa kale aynu sii galeynaa hadda meel aad u qurux badan ay taalo tacliintii ummadeena Soomaaliyeed oo iyaduna ah maasha Allah sahan bookis waa meel aan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed waxay u tahay garaad kaab caqli kaab waayo dhammaan wixii book kugu soo dhacay maskaxdaada ku soo dhacay oo dhan baa laga heli karaa waa meel aad loo qalabeeyay aadna loo diyaariyay looguna talagalay in lagu caawiyo dhalinyaradeena Soomaaliyeed inay helaan wixii ka maqnaa oo dhan ee cilmi ahaa maasha Allah marka waa meel aan aad ula dhacay anigu bal idinkuna ila daawada insha Allah ku soo dhawaada sahan bookis saaxiibayaal sidaad horey noola socoteen quruxda magaalada Hargeysa iyo waxyaabaha kusoo kordhaan la wadaagaynay halkan waxaan iminkaan joogo waa meelaha ugu casrisan ee magaalada Hargeysa kusoo kordhay sanadihii ugu dambeeyay lagu kala iibiyo cilmigii guud dhammaan buugaagta aad u baahan tahay qaybihiisa kala duwan ba halka laga helaa waxaana odhan karaa garaad kaab waa meel garaadkii dhalinyaradeenna kaabaysa oo waxaad ka helaysaa buug kastoo maskaxdaada kusoo dhaco dee dunida markaa caanka ama wax kusoo kordhinaya ubadkeena iyo dadkeena Soomaaliyeed sahan bookis weeyi waa meel runtii markaa anigu farxadeyda lama soo koobi karo markaan dee qiimeeyay aan soo galay gudaheeda idinkuna waa ilaali karaysaano standardkeedu waa heer caalami marka waxaan leenahay iyadana ku xidhnaada insha Allah aad buu mahadsantihiin nala socda waxaynu weli ku dhex jirnaa soo gudbinta quruxda magaalada Hargeysa wadadan halbowlaha ah ama bartanka magaalada Hargeysa maasha Allah hadda waxaynu runtii hortaaganahay iyaguna qaar kamida dabaqyada ugu dhaadheer magaalada Hargeysa ee qurxiya magaaladeena maasha Allah tacab badanna ay gashadeen maal gashadayaashii wadankeenu amaba ganacsatadeeni maasha Allah halkan markaan hortaaganahay waa dabcan Deero Mall ama Deero Group sidoo kale waxa ku yaala xafiisyo waaweyn oo caalamiya sida xafiisyada diyaaradaha oo kale
Ethiopian Airline, sidoo kale waxaa ku yaala Imaaraat, Fly Imaaraat iyaduna sidoo kale way ku taalaa. waxaa kaloo ku yaala dhammaan shirkadii waaweynaa Telesom iyo Somtel iyaba ku yaala halkan. aad baad u mahadsantihiin. waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caawa intaas. kulanti dambe oo xiiso leh idinka ayaan idin dhaafaya like-ta, share-ta iyo subscribe